sidee ku garan kartaa in magnesiumkaaga uu hooseeyo sidoo kale calaamadaha ugu badan ee magnesiumka inuu hooseeyo lagu garto maxay yihiin calaamadaha ugu badan waxaa loo kala qaadayaa laftirkooda laba qaybood qaybna waxaa waaye calaamadaha bilowga hore ee magnesiumka markii uu sii yaraanayo la arko calaamadana waa markii aad uu magnesiumka uu yaraado magnesiumka haddii uu zaid u yaraado mararka qaar xitaa qofku wuxuu geli karaa xaaladaha halis uu geli kara marka ugu horeysa marka calaamadaha koowaad oo bilowga hore magnesiumka lagu garto inuu hooseeyo waxaa ugu horeeya daal sidoo kale in lagu arko qofka kabaabiyo iyo inuu isku arko mararka qaar cagahur iyo gacmaha iyo lugaha inay hurayaan qofka waxaa sidoo kaleeto lagu gartaa qofka magnesiumkiisa ee aad ay u hooseyso hurdo xumo ama hurdada inay ku yaraanayso mararka qaarna waxaa lagu gartaa in qofkii calooshiisa ama habkii dheefshiidka sida rabana uu u socon waxaa jiro xaalado aad u daran oo markaas lagu garto magnesiumka inay hooseyso magnesiumka haddii uu aad u liito calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah kow in uu bareesharka jirka uu wax ka bedelo khalal ama confusion in lagu arko qofka sidoo kaleeto in lagu arko in uu ritamka wadnaha ama qaraaca wadnaha uu isbedbedelayo xaaladahaas saddexda ah waa kuwa ugu badan oo magnesiumka haddii uu aad ugu liito ama aad u hooseeyo lagu garanayo qofka waxaa jira marka dad oo qaas ah oo magnesiumkooda mar walba uu low yahay dadkaas waxaa ka mid ah dadka qabo macaanka ama diabetiska dadka qabo waxaa sidoo kale ka mid ah dadka dheefshiidka ka jiran oo qaba caabuqyada dheefshiidka ku dhaco sida Crohn's disease oo kaleeto iyo cudurrada la halmaala iyo sidoo kaleeto dadka aad waayeelka u ah ama duqa ah mar walba ay sii duqoobaan macdanta jirkana waa isbedeshaa waxaa loo baahan yahay marka qofka markii daadiisa ay sii weynaanayso inuu la socdo macdanta jirkiisa sida tahay sidoo kaleeto inuu la socdo mineralska jirka sida ay tahay aad u mahadsantihiin magacaygu waa Dr. Axmed Yuusuf Maxamed ku takhasusay cudurrada guud ee neef mareenka